cutubyadan oo isugu jira ciidamada guutada 15aad qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka iyo xoogga gacdoonka shacabka ee macawisleyda deegaanka ayaa maanta isku fidiyay deegaano iyo tuulooyin u dhaxeeya ceel dheere iyo ceel la helay oo argagixisadu dhowr jeer ay ka soo abaabushay weerar arbushaad ah oo ay ku waxyeeleeyeen dad shacab ah. howlgalladan ciidamada isgarabsanaya ka bilaabeen aagaasi ayaa qayb ka ah safafka ballaaran ee ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka ay ku doonayaan in khawaarijta al-shabaab looga dulqaado dadka shacabka ah ee gumaysiga ku haysteen dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay. Siciid Cali Shire gudoomiyaha deegaanka ceel dheere oo hoggaan u ah shacabka isabaabulay ee garab jooga ciidamada ayaa sheegay in ay ku jiraan halgan inta laga guuleysanayana ay diyaar u yihiin inay si garab joogaan ciidamada. habeen iyo maalin wax banaanka loo jiifo ama dhaxanta loo joogo waxay tahay sidii la isku kaashsan lahay oo dadka ay ugu noolaayeen nolol caadiya meel walba haday si yeelan oo Soomaaliya kamid ah nin Cali Jeeyta lamida waxay la taa socomayso marka maanta gudoomiyahan maadaama aan ku hadlayo magaca deegaanka waxaan jeclaalahay inaan halkan ka matalo Cali Jeeyta Galmudug oo aan si anba qaado wixii deegaanka iyo dadka sidii aan isku xiri lahay mar walba jiida hore ugu jiri lahay sidii dadka deegaanku ay u noolaayeen intaas markii laga soo tago nimanka khawaarijta oo dadka shacabka meeshan si xun ugu naafay waqtiyaal kala duwan haddana deegaanka ay diyaar u yihiin ragga ciidanka oo dawladda federaalka ama dadka deegaanku anoo ku hadlay magaca deegaanka waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno ciidamada iyo saraakiisha qaybooda kala duwan. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Raagi oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka Dhuusamareeb iyo xildhibaan Mursal Xiifow oo kamid ah golaha baarlamaanka Galmudug oo aagaga howlgalladu ka socdaan ku booqday ciidamada ayaa ku booriyay shaqada ay durbaba ka qabteen meelaha ay isku fidiyeen. cadawgu waa dareemaysaan waxay u soo shaqo tageen oo u soo dhar dhigteen inay meertaan dhiigga dadka shacabka ah maantay kala aabada yimaayaan in la yiraahdo qofkan waa shacab iyo waa ciidan waxa ay leeyahayeen maalmahan dambe ay gumaadayeen ay sida xun ay xasuuqayeen waa shacabkii Soomaaliyeed waa maatadii Soomaaliyeed waa ardaydii waa ilmihii yararka ah oo sakhiirka ahay maantay waxaan ugu baaqaa bulshada deegaanka inaysan kala lahayn shabaabka ku soo duulay dalka iyo dadka iyo deegaankaba inaysan maanta u kala aabadayeen ciidan iyo waa mas'uul iyo waa hebel midna inaysan kala aabadayeen ay qof kasta oo taargud u yahay ee Soomaaliyeed waxayna ku soo duuleen ay tahay cirdiga iyo sharafka iyo karaamada dadka Soomaaliyeed ayada loo soo adeegsaday ayadana loo soo dirsaday marka waxaan u mahadcelinayaa madaxda qaranka magacii aan qaadanay 20 sano ka hor ee ahaa khawaarijta inay maanta ay si dib u soo nooleeyaan magaciina ay nala qaataan xilligaasna la garaway in maanta nala garto waa ugu mahadceleynaa waxyaabihii intaas dagaalka ku jirta uga kordhay oo colkaan ay ka fahantay in saaka la baraatigaray waxyaabo aad muhiim ah waxa kamid ah in ciidamadu talisyadii iyo xeriyihii ay magaalada ka deganaa jireen oo colku oo markasta ku talagali jiray inuu u maleego mashiinada u maleego in laga guuro laga baxo ciidamaduna ayagoo kooxo iyo hurimo u dhisan ah inay magaalada deegaanka banaanka ka difaacaan oo hoodka ay ugu jiraan oo hadda qayb kamid ah oo ururkan 21 koox kamid hadda aan maanta ugu nimid meeshan deegaanadan aadan ugu mahadcelinaynaa waa bogaadinayna arrinkaas in magaalooyinka waaweyn laga difaaco banaanka waliba meelaha colku taarget ka dhiga karo oo ceelasha iyo in laga sikado oo ciidanka duurkaas ku jiraan aad in la bogaadiyo u mudan weeye de amaalkeena ilaaha gudi kara annaguna ka maamul ahaan waxaan ka rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo inaan ciidankaas niyad dhiskiisa iyo moraal dhiskiisa iyo waxyaabaha ciidankaas asaasiga u ah inay shaqadaas ku jiraan oo adkaystaan oo dulqaataan de hadda meesha la degay teendhooyin iyo ninka la yiraahdo waxay u baahan tahay beeskan in wuxuu u baahan yahay wax portable oo guuri karo hadda markii meel laga guuro meel kale loo qaadan karo la helo kale u baahan tahay waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo inaan waxyaabaha u baahan yahay ciidankaanu moraal ahaan iyo logistic ahaan inaan diyaarinaan isku dayna haddii ilaahay yiraahdo gaashaan la xirsi cali qoori taliya ku-xigeenka guutada 15aad ee qaybta 12aad ayaa ugu dambeyn ka waramay sida ciidamadu u fahansan yihiin dhagarta cadawga naflacaariga ah oo ay uga soo ururtay in ay wajiga ka dadbaan ciidamada weerarka ku ah balse ay isku soo xirxiraan qaraxiyo ujeedadoodu ay yihiin in shacabka lagu waxyeeleeyo. waad ogtihiin waad la socotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta 12aad maanta waxay ku sugan tahay guutada 15aad ee ururka ka tirsan wabxo ay gacanta ku hayaan ilaa Warxoole iyo Ceelgod qaybo kamid ah oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 12aad oo taliya qaybtan ku jiraan qaayib iyo xiin dheere ay saacadaha soo socda gacanta soo gelinayaan haddii ilaahay idmo halkan cutubyada ku sugan deegaanadan Sinadhaqo iyo Labi Dulle ilaa ceel la helay hoos timaada waa ciidan loogu talagalay cadawgu wuxuu sameeyaa oo in badan isku dayay
marka la kuleeyo oo la xanuujiyo oo fariisimaha iyo goobaha dagaalka loogu talagalay ay dawladdu u qorshaysa laga soo galo oo maanta ceelbuur loo jira 30 kilomitir waxay isku dayaan inay marasta iyo madaxda iyo talisyada iyo deegaanadii caasimadda iyo deegaanada muhiimka ah inay dadka shacabka ku dhibaateeyaan annagoo ka duulayna arrintaas inaysan dhicin dadka shacabka inaysan dhibaateyn dabamaryada ay yaqaaneen annagoo ka duulayna inaysan sameyn waxaan ugu talagalnay duurkan inay ciidanku ku jiraan ka hawlgalaan intii ay ku jireen ciidanka maalmihii la soo dhaafay ciidanka halkan hawsha ay ka wadeen isku dayo badan oo ay sameeyeen aan fashilinay meelo badan oo ay damcaan inay wax isku aruursadaan la kala ceyrsho carareen markay maqlaan meeshan deegaankani dhowr 10 sano xabadi ka socotay oo khawaarijta lagula dirirahayay maantana fursad uma ay heli doonaan haddii Ilaahay idmo waxaan bogaadinayaa mas'uuliyiinta nagu soo booqday oo kuleylkan iyo rafaadka iyo inay duurka ay ciidanka ku sugan yihiin waxay u tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dhiiranaan bay u tahay hawlgallada ka socda Galmudug ayaa saacadihii la soo dhaafay gacanta lagu soo geliyay deegaano muhiim ah sida Wabxo waxa sidoo kale ciidamadu ay kaabiga ku hayaan fariisimaha argagixisadu ay lahayd oo muhiim ah sida Xiindheere oo ay dul fadhiyaan ciidamada ka dhaqaaqay deegaanka Qaayib oo isugu jira kuwa xoogga dalka iyo shacabka deegaanka Cabdullaahi Warsamro warbaahinta qaranka Dhuusamareeb